nin guur u soo bandhigtay gabar joogtay tacsida aabaheed. intaan sheekada u gudagelin haddii ay tahay markii kugu horeyso aad na soo booqato fadlan nagu soo biira maasan. nin u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa muuqaal saameyn dhaliyay ka dhex abuuray baraha bulshada kadib markii goob fagaara ah oo tacsi ka jirtay uu guur ugu soo bandhigtay gabadha uu dhalay ninka geeriyooday. marka ay timaado in la isu soo bandhigto xiriir guur waxaa jira goor iyo goob ku haboon oo laga fikiro ama laga fikiro, balse kuma jirto in meel tacsi ay ka jirto ama murugo ay ka jirto la isugu soo bandhigto in la isguursado. laakiin da'yarkan u dhashay dalka South Africa kuma uusan guul dareysan in uu xiriir guur u soo bandhigto jacaylkiisa oo waliba dhinac taagan meydka aabaheed. qof goobjoog u ahaa dhacdadaasi ayaa muuqaal uu ka duubay waxa uu ku soo bandhigay barta ay bulshada ku xiriirto ee TikTok, waxayna siyaabo kala duwan uga falceliyeen dadkii ka aragti dhiibtay muuqaalkaasi, iyagoo aad ugu xumaaday qaarkood in ninkan uu u dhaqmo si qaab daran oo ay ku sheegeen in gabar joogta geerida aabaheed uu guur u soo bandhigto, taasina laga fiicnaa. muuqaalka ayaa laga arkayay ninkan oo wata codbaahiye ama microphone jilibkana gaabinaya si uu fargashi ama faraanti ugu geliyo jacaylkiisa. dadka qaar oo ka falceliyay arintan ayaa bogaadiyay, iyaga oo ku tilmaamay arin farxadeed oo gabadha ilowsiinaysa murugadii meesha ka jirtay una bilaabaysa farxadda nolosha. halka dadka kale ee ka falceliyay arintan ay ku tilmaameen in arintan aysan ahayn mid haboon, goob ku haboonna uusan ninkan ku soo bandhigan xiriirka guurkiisa.